maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhisaynaa markaa buu nabigu wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yiri saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yiri inta aqalka dhisaysa malagii suurta afuufayay waa Israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yiri foonintii buu qaatay lugihiina uu kala fidiyay markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalka markay maqleen waxayba moodeen inay saacadu bari ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yiraahdeen yaa rasuulallah maxaan idhaanaa noo sheeg markaa buu nabigu waxa tiraahdaa xasbunallahu wa ni'mal wakiil dhahada wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoodu wuxuu ahaa si waxay jannada iyo naarta hadda ay arkayaan isha ku hayaan innagana maanta ma sha Allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man rahima rabbi mooyaale lana qalbigan uu saamo ba qalbigu إن القلوب لا تزدى كما يزدى الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء حا قلبك دحلين يا وحنا ديقيس قلبك سامين يا وحنا ديقيسنيس قلبك سامين يا وحنا تكوهديس قلبك سامين يا وحنا تكفكريس قلبك سامين يا وأفرت قصمودود قلبك ابن آدم كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتو قلبك قلع وعاد كهذش قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيشته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبا الشيء بعلماء ولادان لبا الشيء بقلبك دحل لك قبيا قرآنك آخر اسكي سؤال الله بديو يا آخرته انت بدل لا شك شك الله حسوسه لك شكاي labada maanta may nagu yarin mise nagu badan yihiin ya quraanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeedina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid سوق المسلمين كمصلاهم بور علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسد مساجد او كلويان سد مساجد إله الله وينين أيو أي زمك النبي سوقنا إله الله وينين أي سد مسجد كده حديث إله الله عاصيين أي سوق كده إله الله عاصيين إنك نزمن كنا مانتا شيكدي دبدة تالي أي الله جاب إن لك كنا مسجد كجودهيس نبو أرك النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقاب النبي يقول إلهي قوم السوء اللي يبو كيري هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي قوم السوء اللي يده هذا أركتانا نين مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوما بركة هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي الله دسيب رسولك يريد نولش مساجد تعلم علماء إليهين أيا للربعين دبد الله ساري نولش دبد تعلم مسجد كإن لك أنا معها عهدك نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدك الصحابة dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku amaaneen dibaddana ilaahay bay ku amaaneen halkan aakhirada ay ku weyneeyeen dibaddana aakhirada ay ku weyneeyeen wallahi siiraday ku taala Umar ibn Khattab suuqa Madiina intuu galab oran jiray halkan inna fariisiya ilaahay saacadaha rumeynay kaalaya Abdullah ibn Umar intuu yimaado Tufayl buu ku oran jiray إن مري الرعب ورنجري حكيت تجنا سوقا تجنا سوق يوم يصوب حيان
هذا مالك قالوا لي نمر الراع هذا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك سوق مركو دور عيسى مركو سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وادنا قيسا مالي والبا بدعتنا كما سو يبستد بدعتنا وما يب قيسد بدعتنا ما سو بايعدي meelaha dadku fadhiyaan nama fadhiisisid war halkan inay fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn umar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu baanu ka lahaynaa waa duco weeyaan ducadaa baanu ka lahaynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan boqol qof baan u ducaynaynaa boqolkaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa boqolkaa awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo salaada muslimiinta la siiyo waa maxay salaanteennu assalaamu calaykum nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay korkaaga ha ahaadaan kii kale muslimka waxa uu ku leeyahay adigana nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakadii ilaahay korkaaga ahaadaan buu ku leeyahay salaantaasaan la soo kallahaynaa boqol qof baan salaamaynaa 200 qof baan salaanta ummadda salaamaynaa way noo jawaabayaan waxay garanayeen saxaabadu in salaanta muslimiinta ay la dhex mareen ilaahay intuu u aqbalo inay nabadii helaan oo naxariistii helaan oo barakadiina ay helaan inagu bagaashka iyo badaacadda iyo adduunyada loo kala lahaa mooyaane sunnaha nebiga loo kala lahay oo lagu noolaan nagama dhadhacsana maanta salaantaasaa lagu dhargayaa cali bin abi taalib inuu yimid uu ka yidhi saaxiib alciyaal baan ahay maciishadii baa igu adkaatay markaasuu yidhi lacallaka tanaamu bacda salaati alfajri buu ka yidhi malaha salaadda fajr kadib ayaad seexataa buu ka yidhi markaasuu yidhi mayma seexdo lacallaka tamshi amaama man huwa akbaru minka sinnan buu ka yidhi malaha qofkaa da'weyn markaad la socoto ayaad hor socotaa buu ka yidhi haddana hor martaa markaasuu yidhi may haddana markaad ducaysanaysid ma laga yaabaa inaad labadaada waalid ilaahay dembi dhaaf aanad u weyddiin markaasuu yidhi haa markaa birta arsaaqadda kaa xidhay waa taas labada waalid ducada ku dar buhi arsaaqadda way kuu furmiyeen meelaha innagu iminka wax ma ka egeegnaa yaa salaanta dadka ay salaamayaan bay risiqa ka dhex arkayeen waalidka ducadiisa u ducaynayaan bay risiqa ka dhex arkayeen istikfaarta ay badanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada ay tukanayaan bay risiqa ka dhex arkayeen salaatu duxaada cahdigii nabigeenna calayhi salaatu wassalaam waxaad moodaysaa salaad jamaca in la tukanayo masjidka zaxmadda iyo cidhiidhiga ka dhacaya